Bismillahirrahmanirrahim daawadayaal ku soo dhawaada qodobada ugu dooran warka warbaahinta codka gobolka Banaadir waxaana kamid ah maamulka gobolka Banaadir waxa qulciid kaga farxiyay caruurtii ay dhaleen Allah u naxariistay mas'uuliyiintii ku geeriyootay qaraxii ka dhacay xarunta dawladda hoose Xamar guddiga shirka dib u heshiisiinta maamulka Galmudug oo war cusub ka soo saaray shirweynaha dib u heshiisiinta beelaha Galmudug saraakiisha qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka oo ka hadlay xoreynta deegaanada ay argagixisadu kaga sugan tahay gobolada dhexe ee dalka iyo xuutiyiinta oo weeraray garoon ku yaala dalka Sacuudiga intaas daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu dooranaa warka warbaahinta codka gobolka Banaadir iminkan waxaad u diyaar garowdaan warkii oo faahfaahsan maamulka gobolka Banaadir ayaa xaqul ciid kaga farxiyay caruurta ay dhaleen Allah u naxariistay mas'uuliyiintii ku geeriyootay qaraxii ka dhacay xarunta dawladda hoose Xamar مسؤولينta maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa hogaaminayay siyaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka maaliyadda ee gobolka Banaadir mudane Ibrahim Umar Mahadale Ibrahim Dheere waxaana sidoo kale ku sugnaa goobta gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka Banaadir Marwo Basma Aamir Ahmed Jaketi مسؤولينtan ayaa waxa ay farxadda la qaybsadeen caruurtan ay ka geeriyoodeen Allah u naxariistay shuhadadii ku geeriyootay qaraxii ka dhacay xarunta dawladda hoose ee Xamar gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka Banaadir Marwo Basma Aamir Ahmed Jaketi oo goobta ka hadashay ayaa sheegtay in maamulka gobolka Banaadir iyo shaqaalihiisa ay ka go'an tahay inay xasuustaan caruurtii ay ka geeriyoodeen Allah u naxariistay marxuumadii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay xarunta dawladda hoose ee Xamar oo ka mid ah mas'uuliyiintii geeriyootay Allah u naxariistay marxuum Generalisow si haya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka maaliyadda ee gobolka Banaadir mudane Ibrahim Umar Mahadale Ibrahim Dheere oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inay ka go'an tahay inay farxadda la qaybsadaan caruurtan oo isagoo sheegay in ay u joogaan boosaskii ay ka geeriyoodeen waalidiintooda Ibrahim Dheere ayaa waxa uu sheegay in ay ugu tala galeen munaasabadaas inay caruurta ay farxad siiyaan kadib kulan ay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ku yeesheen guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta Galmudug ayaa waxa ay soo saareen habraaca la xiriira qabsoomidda shirka dib u heshiisiinta Galmudug oo diyaar garowgiisu ka socdo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug guddiga ayaa shirkooda ka soo saaray 5 qodob oo uu ku furmi karo shirkaasi oo lagu wado in magaalada Dhuusamareeb uu ka furmo 17 bishan go'aanada ay soo saareen guddigu ay sheegeen in shaqadoodu tahay ayaa waxa kamid ah bilowga soo dhaweynta iyo qaabilaadda ergooyinka ka qaybgalaya shirka hubinta iyo kormeeridda goobaha shirka iyo deegaanka ergooyinka diyaarinta ajandaha iyo agabyada shirka wargelinta iyo diyaar garowga hay'adaha amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka waqtiga soo gaaridda ergooyinka goobta shirka oo ah 14 ilaa 16 bishan iyadoo shirka furitaankiisu ay sheegeen inuu yahay 17 bishan si kastaba magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa waxa ka socda diyaar garow ku aadan qabsoomidda shirka dib u heshiisiinta beelaha deegaanada Galmudug taliska qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa waxa ay ka hadleen xoreynta deegaanada ay al-shabaab kaga sugan yihiin gobolada dhexe ee dalka kulan uu taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka xoogga Cabdicasiis Cabdullaahi Cabdi Qooje uu la qaatay saraakiil ka tirsan qaybta ayaa looga hadlay wada shaqeynta taliska iyo dardargelinta qorshaha argagixisada looga saarayo deegaanada Galmudug saraakiisha qaybta 12aad ee kulanka ka qayb galay ayaa taliyaha cusub ee qaybta ugu hambaliyay xilka iyagoo ballan qaaday in ay kala shaqeyn doonaan ka gulgaaridda xoreynta deegaanada Galmudug si loo helo nabad waarta iyo horumar saraakiisha ayaa u mahad celiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo dhammaan cid kasta oo gacan ka geysatay isku dhafka ciidanka Ahlus Sunna iyo ciidamada dawladda iyo u diyaarinta xoreynta deegaanada Galmudug taliyaha qaybta 12aad Cabdicasiis Cabdullaahi Cabdi Qooje iyo taliyaha guutada 15aad Mas'uud Maxamed Warsame oo ka warbixiyay waxyaabihii kulanka looga hadlayay ayaa si wadajir ah u ballan qaaday in taliska uu ka shaqeynayo sidii bulshada ku nool Galmudug guud ahaan ay uga dulqaadi lahaayeen dhibaatada ay ku hayaan argagixisadu aad iyo aad mahadsantiin saraakiil waxaan ka mahad celinaynaa sida aad uga soo qayb gasheen kulankan oo macnihiisu ahaa isbarasho iyo wada shaqeyn waxaan mahad celinayaa markii ugu horreysay taliyaha guutada Jeneraal Mas'uud guutada 15aad ee qaybta 12aad iyo dhammaan saraakiisha waxaan kaloo rabaa inaan mahad celiyo ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo madaxa xukuumadda Sheekh Mashaakir iyo Macallin Maxmuud ayagoo ka shaqeeyay arrintan iyo kulankan
taabageliya 40 biro la soo dhaafay in sidan wax u dhacaan waxaan aad ugu faraxsanahay sidaan hadda wax u socdaan waxaan halkan aan u bogaadinayaa saraakiisha shaqo wacan oo maaragtay wanaagsan dhex mari doonto haatanna meesha ay marayso waa meel fiican ciidankiisu dhafkiisii iyo hawshiina meel dhex inoo maraysaa aad u mahadsantihiin waa bilaa tawfiiq wareen waxaan rabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u mahad celiyo noo suurageliyey kulankan qiimaha badan sharafta badan ciwaankiisuna oo ahaa isbarasho iyo soo dhoweyn aan ku soo dhoweynaynay taliyaha qaybta 12aad taliya qooje iskuna baranayeen saraakiishiisii kala tirsaneed qaybta 12aad wuxuu nagu soo gabagaboobay si fiican waxaa nooga soo baxay qodobo 1 in wada shaqayn dhab ah la yeesho 2 in cadawga si wada jir ah looga hortago 3 in awaamiirta si toos ah loo kala qaato taliyaha qaybta 12aadna aan ka amar qaadano haddaan nahay saraakiisha qaybta 12aad anoo ah taliyaha guutada 15aad ee qaybta 12aad waxaan si toos ah ula shaqaynaynaa uga amar qaadanaynaa taliyaha qaybta 12aad waxaa xusid gooniya mudan in saraakiishu dhammaantood ay u diyaar garowsan yihiin inay amniga sugaan cadawga ka hortagaan dowladda federaalka mas'uuliyiinteeda sare iyo qeybaheeda kala duwanna ay soo dhoweeyaan si aan kala har lahayn waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ugu horeyn ra-iisul wasaaraha qaranka Soomaaliya mudane xasan cali khayre sheekh maxamed shaakir gudoomiyaha madaxa xukuumadda galmudug dr sheekh shaakir cali xasan macalin maxamed sheekh xasan gudoomiyaha guud ee ahlusunna wal jamaa halgankii iyo juhdigii ay ku bixiyeen ayagoo wada jir ah in maanta ay meeshan soo gaarto midnimada noocan ah in qarankii Soomaaliya uu hana qaado meeshaan in lagu midoobo macnaheedu wuxuu la mid yahay in qarankii Soomaaliya uu kor u kacay sababtoo gobolada dhexe waa laf dhabartii Soomaaliya marka waxaan mar kale u mahad celinayaa mas'uuliyiintaas ugu horeeyay wasaaraha Sheekh Maxamed Shaakir iyo Macalin Sheekh Xasan muddo fara badan ay ku bixiyeen sidii loo midoobi lahaa kala xirxirka iyo dhibaatadana looga kala macnaha looga badbaadi lahaa cadawga Soomaaliya dhabarka looga jebi lahaa marka waad ku mahadsantihiin waliba wasaaraha Soomaaliya waxaan si qaas ugu mahadcelinayaa in uu muddo 2 bilood ku dhawaad ah oo halkan u fadhiyay shaqadii guud oo Soomaaliyana uu hayay qayb ka mid ah halkan uu muddo u hayay una dul qaatay kuna soo gaarsiiyay in maantay qaybihii dowladda kala duwan ay si toos ah ugu shaqeeyaan marka dhammaantiin waa mahadsantihiin waxaad ku mahadsantihiin sida sharafta leh oo aad shirkan maantay qada sharafkan oo noo sameeyay taliyaha qaybta 12aad mudane qooje aad uga soo qayb gasheen u soo ajiibteen una tusteen taageerada aad u haydaan iyo shaqeynta ugu dambeyntiina maleeshiyaadka xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa weerar loo adeegsaday diyaarad aan duuliye lahayn ku qaaday garoon ku yaala koonfur galbeed Sacuudiga oo ku dhow xuduudda Yemen waxaa sidaas maanta sheegay telefishinka Al-Masirah ee xuutiyiinta ay leeyihiin warbaahinta dowladda Sacuudiga ayaan weli ka hadlin weerarkan isla markaana saraakiisha Sacuudiga ayaan ilaa hadda jawaab laga helin xuutiyiinta oo maamula magaalada caasimadda u ah Yemen ee Sanca iyo deegaanada ku hareeraysan ayaa bilihii dhawaa sare u qaaday weerarada ay ka fulinayaan bartilmaameedyo ku yaala gudaha dalka Sacuudiga iyagoo taas kaga jawaabaya ayaa isbahaysiga Sacuudiga uu hogaamiyo ee dagaalka Yemen waxa ay beegsadeen goobo military oo ay kooxda leedahay gaar ahaan kuwa ku yaala agagaarka Sanca weeraradan ayaa sii adkeynaya dadaalada nabadeed ee qaramada midoobay ee hogaaminayso guud ahaan warkii idinkaga imaanayay warbaahinta codka gobolka Banaadir xilligan waa naga intaa